waxaan leeyahay madaxda dhaqanka Jamhuuriyadda Soomaaliland aba ha yaraadan aba ha weynaadaan waxaanu leenahay war ku eegaada madax dhaqanmadiina maanta hadii la yiraahdo wareerkii aad u talinayseen ay soo caalima saareed xilka u hayseen reerii maxaa ku soo baray maxaa ka maqan inayna warbuuhayn baa suuragal sharafta iyo karaamada cumaamada iyo koofiyaduna waxay tahay in wax walba oo qaranka ku yimaado amba qaranku leeyahay cidii maandheedu lahayd ka hadli lahayd inay tahay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo hogaaminaya madaxweynaha qaranku in loo daba fariisto waxa leeyahay wixii qaranka waajibaad ku ah inaga mid un baa inagu waajibay inuu ka hadlo wixii qarannimada qaran jab ku ah ay xukuumaddu la timaado qaran waxay nagu tahay waajib ay nagu tahay inuu ka hadlo laakiin wixii iyadu maandheedu leedahay inuu nagu kaba hadalaba meesha nooma taalo nin baa gabiyo wuxuu yiri Soolimeyso waanadu nimaanu ma sameysnayn Boqor Cusmaan Buurmadu waxaan leeyahay safiir baad noqotaan ma leeyahay qadamada sultaannimadu ka tagtay safiir dabay u fadhiya Soomaaliya ayaad noqotaan ma leeyahay oo madax dhaqameednimadu ka tagtay sabab saddeed لواديك كاضي Soomaaliya wada hadalkeedii Soomaaliya wada tashigeedii Soomaaliya sidii ya adeer Soomaalinimadu marbay jirtay maanta Soomaalinimadu ma jirto maanta shantii Soomaaliyeed waxay noqdeen meel walba dawlad ma noqotay LFD dawlad kilka Soomaalida Itoobiya Djibouti Soomaaliya Somaliland marka adeer qarankani wuxuu yahay qaran muddo 30 sanadood ku dhawaad soo dhisnaa Boqor Cusmaan waxaan u maleeyahay waxaan ka yar maqlay maalin uu hadlay Cabdiroosh baa ku sheekeynay shir Cabdiroosh ka dhacay inaanu joogin waa suurtagal deesan baa uma hadleen Boqor Cusmaan waxaan leeyahay haddaad og tahay dhibaatadii qarankan loo soo maray iyo halgankii dheeraa loo soo maray ilaa alaan taagan ilaa alaan buu taagan sidaaba uma hadasheen Boqor Cusmaan Buurmud hadda shirarka ka qayb gashay waqtiyadii dhaqdhaqaaqa wadaniga asalaam ka waxaan ku leeyahay Boqor Cusmaanow waxaad noqotay ninka la sheegay Soolimeyso waanidu wax walba waa lagu waxa lagu madax dhaqameed baad oo sharafta iyo karaamada reerkiina ilaali taadana ilaali wixii ma shaqeynayaan maanta dee safiir Soomaaliya dib u fadhiyo ma ku haysta waxaan leeyahay salaadiinta kale labada suldaan ee kale salaadiinta badahabana waxaan leeyahay waa sharafta iyo karaamada umadiina la ilaaliyo qaranka la ilaaliyo Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir waxa bada imka la sheegaa suldaanka guud ee beelaha Soomaaliland leela Suldaan waxaan ku leeyahay Suldaan weyn baa tahay Suldaan sharaf iyo karaamo naga mudan baa tahay sharafta iyo qiimaha cumaamada iyo ay leedahay koofiyaduna ilaali sharafta taada iyo tireerkana ilaali de magacaasa wad haystay maxaa Soomaaliya waxa ku wato baladil leeyahay suldaanka guud ee beelaha suldaanka guud ee Soomaaliland baa leela marka teetarkaaga la sheegay waxaan kaleed ka sheekeynaysaa wax malaha ku qalma maahay imkana waqtigu waa iska adag yahay siro football loo socdaa bal aakhiradiina ilaashada Suldaan Xasan waxaan leeyahay Suldaan Xasanow magaca beelaha Soomaaliland waxa lagu sheegaa Subarawal Suldaan guud ee beelaha Subarawal baa sharafta sadanada Subarawal la ilaali sharaftii ka horeysay sanadii sadaradeedina ilaali taqaranka iyo shacbiga Jamhuuriyadda Soomaaliland ilaali waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad baa cid loo daba fariisanaya waa qaranka maanta jira ee xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland hogaaminaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waa sharafta raba waxa bad moodaa siyaasad bay duu gudbeen madax dhaqameednimo ka tigay haddii wada hadal noqoto haddii kala hadal noqotoba iyo haddii aan la soo fariisan baa waxa uu leeyahay mandate xukuumadda maanta jirta Jamhuuriyadda Soomaaliland amba ka dambe soo socda ha gaaro amba ka maanta jooga noqotay cid maanta kursiga ku fadhiyo baa u leeyahay
walaa madax dhaqameed baa soo gali kara hawsha waanigan kuladee waninkii wixii loo doortay baa duugan waa soo mushkilad ma maanta hadii la weydiyo reerkii maxaa ku soo biray maxaa ka baxay hadii la weydiyo maanta ma garan karaaba dhulkeena barwaaqaayay obay haqaltaaga naga dhaafay obay tafaararuq naga dhaafay obay qolqolaada naga dhaafay obay naqdigiyo udubteed obay dhaxalkeenu waa guul obay naqdigiyo udubteed